ciidankan oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 300 oo ka mid ah ciidamada Commandoska Gorgor guutada shanaad isla markaana in muddo tababar ku soo qaadanayay dalka Turkiga waxa ay maanta dib ugu soo laabteen dalka iyaga oo ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde sihayaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar dambe taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dalka Turkiga ayaa ku sugnaa madasha lagu soo dhaweynayay ciidamada Commandoska Gorgor General Odawa Yusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka oo ka hadlay munaasabadda lagu soo dhaweynayay ciidankaasi waxa uu kula dardaarmay in aqoonta iyo tababarada ciidanka ay soo barteen ay dalka wax ugu qaban doonaan waxaan rajaynaa ilaahay ciidankiisa inay noqoto taasi mid aad ku anfacdaan qaranka Soomaaliyeed mid aad ku anfacdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mid aad cadawga iyo dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ku heesta aad uga dul qaadaan oo dalkan uu ku noqdo dal amni iyo xasiloonidiisa qof walba muwaadin oo isku halay karo aad iyo aad u maadsan wasiirkeena gaashaandhigga oo runtii saakay nagala soo qayb galay soo dhaweyntiina iyo dhammaan saraakiisha halkan taagan oo ugu horeeya taliyaha dugsiga hoggaanka tababarka military ataajaha u qaybsanaha arrimaha ciidanka ee halkan nagula sugan iyo guud ahaan saraakiisha kale runtii waxa ay dadkaanu noo qabteen wax af lagu soo koobi kara ma ahan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin adinkana waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa mar walba xusiisnaada wixii ay soo qaateen kuwa xusiisnaada marxaladii kala duunaaya ay soo mareen iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ka sugayo ee saaka halkan u taagantiin sihayaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar dambe ayaa ciidanka tababarka ku soo qaatay dalka Turkiga ee maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho kula dardaarmay in ay ka soo dhalaali doonaan waajibaadka ay soo guteen waxaan subaxnimadan aroortaan u imaanay waxay tahay taliyaha iyo wasiirkii idin imaadeen macnaheedu waxay tahay in dalkiina hooyo aad wax u soo barateen ee ciidankiina ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan idinku soo dhaweyno waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin soo dhawaada insha Allah ta'ala dufcooyin idinka horeeyay ayaa jira sidiina oo kale aan u soo dhaweynay oo waagi ay idin direynay sidiina oo kale aan u dirnay oo runtii waajibaadkooda soo gutay oo haddana waajibaad sii gudanaya oo dalkaani u adeegay kuwaas ayaad ka mid tihiin insha Allah ta'ala ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ilaahay aan ka baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Umar Maxamed Soomane Universal TV Muqdisho